السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لها قالقة أنا وحنا كينج سولفر وحد يقدر ونسا كينج سولفر ميديا بليز ولا قالقة دي أيتها مركي كوريسي أتصبح قط أنا جا channel كيجا وحن قاعد ثانية أولا أنا سبسكرايب تر هذا لايك تي كومنت وح إشارتنا أذكر السؤال أدوكو وقت بدن كاقلو من مايو العقنا وما فرد كل بها دي أدم مقار كان داونيسو ولا وحن كلية هاي دنيدو واي challenge بدن تهاي dunidu way heerar badan tahay dunidu way dagaalo badan tahay dunidu way culeysaad badan tahay alla waxaan kaaga baryayaa inaad noqoto kii iska difaaci lahaa u adkeysan lahaa awoodeedana yeelan lahaa inaad noqoto intaa kadib waayahay muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku dul istaago lamaanaha qarniga lamaana aan weli u aqoonsanahay inay lamaano yihiin dad weli aan u aqoonsanahay inay yihiin dad lagu dayday haddana weli aan rabno inaan ku dayano waa lamaane jacaylkooda qiimahooda wanaaga badan aan aragnay balse tashuush kani furan maalmahan dambe muxuu yahay Soomaali waxay tiraahdaa wixii la sheega wax baa ka jiro war la umbeeyo way ka cakaro raxmarka magta raxmarka way turteen bila ma raxmarku hadii la yiraahdo mid waa mahmaahen inta waa mahmaahen bar waa mahmaahen koonfur raxmar iyagu waxay yiraahdeen war la umbeeyo way ka cakaro marka intaas kadib walaalka qaaliga waxaan rabaa inaan xaqiiqada aan dul istaago xaqiiqada in aan dul istaago ayaan doonayaa walaal waxaan arkay youtubero badan oo sheegaya xan iyo wax aanan raad iyo saltoona lahayn balse King Solfer waxa uu ku siin doonaa xaqiiqda aan ka soo bilaabo walaalaheen quruxdii iyo jacaylkii ay noo soo bandhigi jireen wax yar ila soo daawado waxaan filayaa in aan wax yar xasuus ku geliyay lamaanaha quruxdoodana aad soo yara daawatay wax yar waxaad iminka ila daawataa muuqaal xaflad lagu sameeyay Hargeysa ugu hayaamaysay doonaysa inay Nairobi dib ugu laabato wax yar ila soo daawo waxaan filayaa muuqaalka in wax yar sawir ah ama muhiimadda wax yar ay ku muujisay ugu dambeyn waxaad ila soo daawataa xaaladda iminka ay ku sugan tahay Rasmi Reis asxaabteyda iga raali noqda waxaan hay telefoon lahaan insha Allah marka telefoon soo qaato oo oga waxyaalo badan aragtina ogaatiin run ibay waxay tahay insha Allah ana niga soo jawaabi doona sida ugu fiican ugu dhaqsiyaa badan hadii alimo laakiin telefoon la'aan mar baan Snapchat ka Instagram ka telefoon markaas inoo aanaysa wana kaste inuu soo duceeyo oo yaraxna sanayo isha sanabar yariga soo baxay xanuun weyn oo kala wax kale u baahan tahay waxay tahay iminka xaalku waa sidee hadda xaalka intuu marayaa maxaa soo kala dhaxgalay shaydaanka inta la eg muxuu yahay ee labadan lamaane isku diray dadku waxay sheegayaan oo anigu aan soo daawaday maxaa ka jira waxaan ku hormarayaa xaalku hadda intuu marayaa walaal dambi iyo been badan iyo waaliye iyo qiila waqaala ma qurux badna mana fiicna dambi ay adigu kugu sugan xaaladooda meesha ay marayso waxaad kaga qiyaas qaadan kartaa sawirka hadda ku tusiyay muuqaalada aan ku tusiyay waad kaga sawir qaadan kartaa laakiin kuma hadli kartid oo iska ma hadli kartid ma sheegi kartid
laakiin waxaad ka qaadan kartaa fikir ilaa baniaadamka alle subxaana watacaala waxa uu siiyey maskax uu wax ku qiyaaso laakiin ma siinin waa maskax uu ku ogaado waxa uusan isagu ogeyn. cilmi qaybka ilaahay wuxuu yiri ma ogaan kara baniaadamka, anaga marka ma ogaan karno. cilmi qayb waxaa la yidhahdaa wax adiga cidna aysan kuu sheegin aan arkinba, marka kuma fogaanayo. intaas waxaa sawir ood ka qaadan kartaa keliya in wax uun ay jiraan, in la kala guuray, safaaradii la kala qaatay waa dareemaysaa, laakiin adigu ha sheegin. oo waxaa la yidhi hadal waxa uu ammaan yahay inta caloosha uu ku jiro, adigu aamus ilaa hee aad iyo aad. waaya xaqiiqda taalla intaas marka aan ogaanay, sideen ku ogaan karnaa dadka kan maxaa soo dhexgalay, maxaa jira? taasna waxaan kaa dhahayaa bal ku cesho muuqaalkii hadda dib aan kuu daawin aad u daawatay, bal mar kale dib u daawo. muuqaalkaas waxuu kuu caddaynayaa in labadani qof iyagu soo fariistaan, ama ha isla fariistaan iyagoo isla jira ha noqdo, ama qofba meel gooniha ka soo hadla. ilan waxay leeyihiin bara lagu yaqaano sida Instagramka, YouTubeka, whatever, inay iyagu soo hadlaan mooye bani aadam ogaan karaa ma jirto. haddaan waxyar ku xasuusiyo, prank wax la ayaa jiro, weliba ay aad caan ugu yihiin labadan lamaane. prankiga soo daawo YouTubekooda, laakiin prankisiga sidan waa uu ka duwan yahay waan ognahay. laakiin adeer maxaad ka ogtahay prankeyga branki weynaado inuu yahay? barnaamijka kan inuu branki weynaado yahay oo adeer xigada dhalay oo ilmo dhalay inuu yahay maxaa ka ogtahay? brankiga ilaan isku fac maaha, isku heerna maaha. marka branki weyn waa uu noqon karaa, taas laftarkeeda ku fikir. laakiin bani aadamka maskaxdiisa oo ilaahayna siiyey markaan ka qiyaas qaadano, ciddana way kala guurtay, way kala qalab qaateen, kuma haystaan. laakiin adiga maxaa la rabaa inaadan been ku hadlin, xana ku hadlin, qiilo waqaalna aadan ku hadlin. waxaan beris adigu ha ku raadin, beris gooniya ha ku raadin, laakiin waxaad u hadashaa sida saxda ah adoo dhahaya adeer waa la isgalay, laakiin ka hor dhic mayne aan ka warsugno dadka iyagu isgalay, iyagaa soo hadlaye aan ka warsugno. isgalay waxaan kala jeedaa isku dhacay, kala cararay, kala fiigay, kala irdoobay intaba. marka waxaan kusoo gaabinaya anigoo King Solver ah, walaal ilaahay ka cabso, waan tow oo been ummadda ha u sheegin, been aakhire adduun midna kuma fiicna. marka innaga laakiin marka aan teena ka qiyaas qaadano, ciddana way qalab qaadatay, laakiin waxaan ka warsugnaa jawaabta iyagoo ayna siiyaan ee ummadda ay la hadlaan. ilaa hordhacba gabadha saa u sheesi waad maqlayseen. walaal anu waxaan King Solver, haddii muuqaalkayga iminka meesha u maray aad soo gaarto, waxaan kaa codsanayaa inaad t-shirt garayso, like iyo commentin aad taabato. waxa uu ani ugu dhiirigelin doonaa mar walba inaan muuqaal soo sameeyo, soo hor istaago.